ambalaaskan isbitaalka Xaaba Cabdi waa mid lagu waday meydka Allah u naxariistay Dr. Xaaba Cabdi oo saakay ku geeriyootay gurigeeda magaalada Muqdisho waxaana saaran gaadiidkan tirada badan boqolaal dadweyne oo isugu jira dhaqaatiir qoysaskeeda asxaabteeda iyo qaar ka mid ah dadkii garanayay kuwaas oo maanta u galbiyay Dr. gurigeedii rasmiga ee qabriga صل على النبي اللهم صل على النبي marxuuma Dr. Xaaba Cabdi ayaa salaada janaasada lagula dukaday barxadda xarun aad u weyn oo isbitaalka Xaaba Cabdi looga dhisayo degmada Daynile isla markaana lagu soo aasay halkaasi ugu horeyntii xubno ka mid ah dadkii aaska ka soo qayb galay ayaa u duceeyay Dr. isla markaana ku tilmaamay inay ahayd qof aad u naxariis badan inta soo koriday inta wax qabataba kor Allah ka dhigo ayada jacayl Allah ka dhigo rahma Allah ka dhigo waa mid duco mid daneed waxa weeye waa la wada og yahay islaamka dhama caawa ninka mudug jooga iyo ninka jooga meesha la yiraahdo Baydhabo intaas oo dhan way taqaanaa way ogtahay wixii ay qabatay muddo badan bay soo shaqaynaysay تختار هاي الله أن حريستو حاوى عبد الدبلاوي تتورس حاوى عبد الدبلاوي وقف متعلم وضل كذا يدد كذا وحوسو قبطي وضل كذا يدل كذا وحوسو قبطي تاريخ ذينا مال والبلغة شيء لنا أجي هاي وعي كجرتي دتكي مركي وطن كلغا عرضي ومصيبة وعيد على سيفيل وورك ودعي dadkii wadanka ku nagaaday oo nafteeda sacrifice ku sameysay inay u dhimato dalkeedana go'aan ku gaartay inna lillahi wa inna ilayhi raaji'un Xaaba Cabdi Diblaaba ilaahay ha u naxariisto gadaashadna ilaahayna ma fidnayo inta ay ka tagtayna ilaahay dadka ka dhigo maama Batuula Dheere Faraji waa umiliso in ka badan 30 sano la soo shaqeynaysay Dr. Xaaba Cabdi ilaa iminkana ka shaqeysa isbitaalkeeda iyo Dr. Abubakar oo ah dhaqaatiirta cadaanka ee ka howlgala isbitaalka Xaaba Cabdi ayaa waxa ay si wadajir ah uga hadlayaan geerida ku timid marxuumada isbitaal Banaadir iga soo wadatay anoo kaniinis ahay isbitaalkeeda aan ay geysay waa i tababartay fariista waan naqday oo mulas waan naqday qaybta waa ka shaqeeyay hadan Dr. Amnaan la jooga aamino 8 jir aan gal shaqada aniga waa ku duqow meesha ilmuhu ku soo korsaday jisaaka la akhir jannada la ka waraabi walaashay Dr. Xaaba Cabdi ma qasana wada shaqeynaysan aniga ma sha Allah siyaad ma bixin be hooyo yaa hooyo maskaxad ma baalak siyaad baran bixin today he lost Dr. Xaaba Cabdi maanta waxaan joognaa aaska Dr. Xaaba Cabdi إنا لله وإنا إليه راجعون ما محابة الله كو أوال مريا جنة الفردوسة دمانتين واد مهنسنتين all who is coming here الله رحمة إليسن ماما مصدق عبدتك ugaska beesha xuskul habiye ahna ugaska Dr. ugaas mahad ugaas Maxamed Ciise ayaa ka hadlay garashada uu leeyahay Dr. Xaaba Cabdi waxaan ilaahay uga baryeynaa inuu ilaahay qabriga u waasiciyo jannatul firdawsana waa ilaahay baan uga baryeynaa taariikhdeedo gaaban hadda idin kaga sheekeeyo Dr. Xaaba Cabdi waa qof ummadda u adeega oo mujtamaca Soomaaliyeed oo dhan ay ka warhayaan 1992 waqtigii caaga ahaa goobteeda shaqo ayay ummadda ay ku kala badbaadinaysay oo haday tahay dadka maartay geeriyooday oo dhulka jidka ayagoo socda ay ku geeriyooday ayay aasi jirtay kuwii badbaadana raashin iyo daawo ayay siin jirtay marka taa waxa way waxayna tusaysaa voluntary waqtigaas ku shaqeynaysa haddana waxaan u rajeynayaa oo ilaahay uga baryaa ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan inay u duceeyaan maamadaas oo taariikhdaas weyn leh oo aan u rajeynayo inay maaragtay ummadda Soomaaliyeed taariikhdeeda ay dib u xisu doonaan insha Allah
Dictoraysa Aamina Aadan Maxamed waa gabadha ay dhashay Dictoraysa Xaaba Cabdi ahna maamulka sare ee isbitaalka ayaa waxa ay ka dhawaajisay dardaaran ay hooyadeeda kaga tagtay. hooyo Soomaaliyeed ahayd hooyo qaran ahayd dalkeeda iyo dadkeeda wax u qabatay Allah u naxariisto wadankan wax badan u soo qabatay dadkeedana way ogyihiin dunidana waa laga ogyahay waxaan ugu tacsiinayaa Allah u naxariisto qof Soomaali ahayd qofkii koowaad oo Soomaaliya gyno obstetric ahayd weligeed waxay ugu waani jirtay daacad dadkaada ugu shaqeeyay dalkaaga qof kolka aragtan waxay dhihi jirtay shaqada wax lagu yahay shaqada karti lagu leeyahay waxay ahayd hooyada rool waxaan fiirsanaa ilaahay noloshayda ahayd kartida aan ku socday iyada ahayd ilaaha u naxariisto محمد أحمد حسن محمد يولكا تيفيق عالمي كالسن مقالة مقدشو.